ورحمة الله وبركاته. غير تحضر لها السرود ولكن جنا كنا دورنا ولا حد له ولا القال جنك وجرك من السكراب هذا اللي كذا الشر إذا أصحاب تلذته ما أنتم هنا ما أنتم هنا دباتو حمون بدن أو كده عادي أفجو يكده عادي أيان روا ما أنتنا للوذا والله دبات إن بن عادي هنواي أضوم إنها دبل دقة حلفت راس دقة هايو هدي دباتو تنو كلا مسيو ذا سوق الدول له يكسو أديو صدق كذا ملا عاد وقتها خوس دن أو أديك فرح سنة راس دكتي أي أديك وها كل عادي أرن مسيو خوس كاس أو أي كده نرفض لوه بعد أركيسا شكا إن بن عادي دول فرح سيحي قفل لبنوا وقسليا بل صدقيقة الكذب waxaa halkan mar qura lagu wada diri doonaa si toos ahna loo toogan doonaa waliba si arxan darro ah in ka badan 10 qofood oo waliba qaarkood ay hadda aad arkaysid iyaga oo qoslaya waxaana dhaawac halis ah uu soo gaarayaa badi dadka halkan fadhiya maadaama mar dhow halkan ay ka bilaabanayso rasaas nool hooyo iyo gabadheeda ayaa halkan lagu wada qaarijin doonaa maadaama halkan uu ka socdo xaflada arooskan waxaa dhiganaya قبائل degmada afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose balse halkan waxa ku layn doona qabiil kale oo ay aana qabiil ka dhaxaysay ka hor ka hadalka sheekadan iyo sida ay ugu soo ragashay in rag hubaysan ay halkan dad ku laayaan iyada oo ay xaflad aroos halkan ka socoto waxaan ka codsanayaa marka hore haddii aad qalbi iyo damiir naxa aad leedahay inaad qaybta hoose ee commentiga ugu duceyso oo وهذا رتي أروس السجاء وحكي على أهل بن عادي هنا كدعدي وماشي لجوا هاي يجي هاي جبرتينا يود لمي لا أروس كاس معناها الماضي أي كارين حبدس يو رفض هذه السلعة إن بن عادي أوكي نصيبت حقا لا يعرف له يدك هلك لجوا خارجية أو حفلة دولة أروس كما كاسي اسكت بده شيء بروجو وتكون مع سنتا إذا وده لجانقادkaaga faahfaahinada dheeraad ah ayaa ka soo baxaya toogasho sababtay dhimasho iyo dhaawac fara badan oo xalay ka dhacday goob ay xaflada aroos ka socotay oo ku taalo duleedka magaalada Afgooye oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose wararka aan helay ayaa sheegaya in rag hubaysnaa ay rasaas ku fureen dadweyne ku sugnaa goob ay xaflada aroos ka socotay oo ku taalo tuulada Cagaley oo hoosta ka deegaanka Buulalow inta la xaqiijiyay waxaa dhacdadaas ku dhintay ugu yaraan ilaa 5 qof oo si toos ah loo toogtay halka ay ku dhaawacmeen 9 kale kuwaas oo la geeyay isbitaalka guud ee degmada Afgooye dad deegaanka ah oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay in kooxda weerarka fulisay ay goobta isaga baxsatay mana cadda ilaa iyo hadda sababta rasmiga ah ee ka dambaysa dhacdadan ugubka ah ee dadka ay badi la yaaban yihiin sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo howlgalo bilaabay agagaarka degmada Afgooye iyaga oo baadi goobaya raggii ka dambeeyay dhacdadan naxdinta leh ilaahay ha u naxariisto intii xalay ku geeriyootay goobtii ay ka socotay xafladan aroos ee ka dhacaysay markaasi tuulaan sidaas uga fogeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose inta dhaawaca ahna waxaan alla kaga baryeynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo ha kala baqaylin ducada daawade qaybta hoose ee commentiga ugu ducay وهذا رتي وهذا هذه حلقة إسكت جه أروس أي مربو ماشي هاي كده على أرض المسيوة هنا بنعادي هنا كده على ويران سجال قفض مش كود عو عنتي ويران دعوة سجال وتوي إيه بدون تل لكن هرت الرصاص مش كده علينا بعد ما هنا يقول أصحاب أنا إلو ذا لقي سوعان رصاص واد مغشان يقول ماشي ورفاتك كده وهذه معنا اسكفر عشان عروس هذه ماشي ويمدي ورفات كان يسلع عن كل عواي وهذه أساس إيتان محلو أنا قبيل واي دبات دان ودن وحكي بعيتها أنا قبيل بعد وقتها أديك عادات أديك سومالي وأديك دبات دان هاي استبعيتها هاي قبيل هذا واحد وبر واي كهني قبيل قف كمد أي خلد جلا يقف واحد كهالين أيو دليا
adigoo meel iska taagan oo war i waayo midna aan hayn ayaa in lagu imaado hadda ciddan arooska ahayd kuma aysan sheegin qabiilkooda qof ka mid ah inuu qalad noocaas galayo kabacdina looga aari doono ayagoo iska dabaaldegaya aroosayo adiga xaalfad aroosa joogo iska niikaha iska baashaalayo in lasoo weeraray ayaa aana qabiila dartiisa 5 qofood goobta la dhigay iyo 10 qofood adiga oo gaaraya 19 ilaa 20 qofood gaarayso oo ilaa hadda isbitaalka guud oo afguyo yaalo dhaawacooda dadkaas hadda sababta loo dilay iyo micnaha loo dilay dhan ay tahay bis qabiil dartiisa ay isbitaal u jifaan qalad ay galeen ma ahan dhibaatadan soo gaartay maxay ku gaartay waxay tahay heer hebel ma tiido waxtan ilaa hadda 32 sano ilaa 33 sano haysata ayaa taas ah oo dhibaatadaas ay tahay in micnaha adigu war i waayahay heer hebel ma tahay bash heer hebel ma tahay dhag heer hebel ma tahay baba qof adigu war waayaan ka helo waxaad arkaysaa inaa masaajidka soo baxa war i waayo maha inaka adeerkiisa qof ku dilaayo adiga meel heblo asigii la arka ilmo liiqana inuu heer hebel yahay asoo war i waayahay meesha arsaas lagu shuba dhibaatada Soomaali ka jirta ayaa taas ah hadda cidana u jeed aroos ay dhigteen wallahi been ku sheegay xarfadaasi u shilnay sida baashala halka baashalo ka dhacay horta waxa iga daran inta qabiilkaas lama rabo inta arooska joogtay oo qabiilka aan ahayn dhaawac ku gaaray oo qaarkood dhimasho ay ku gaartay halka waran intii loo socdo heer hebel ayaa wax laga dilay aan ka arsan intii loo socdo maxaa ka soo sokeeyo maxaa dadka ku dhex jiro yaa la garaafeen malaha okay horta midda koowaad waxay tahay Soomaaliya ma la sameey karin qofka dhibka geysto qofkaas kaliya in loo raasiyo qofkaas la dil kaliya ma la sameey karo ilan qof aan dhib sameeyay oo iska meel iska joogo gurigiisa iska joogo mise meesha shaqo iska joogo mise masaajidka soo bax mise adiga gurigiisa joogo oo war i waay aan loo hayn in la dilo in kii khaladka galna beledka oo ku laafiyoodo in la qofkii adiga qofka ka dili hadad raasato waxa dhib meelada ma iyadoo aan loo saweeyay macna ninka heer hebel mu heer hebel wax ka dilina iyadoo aan loo saweeyay yaa wax ka dil hebelka aan raadin waqtiga tuba qaado lama dhihi karo ma arintaas hadda cidda aroos ee wax caal i waay ay hayeen ilaahay abuurto man hooyo waxaad arkaysaa family dhan ayaa meesha ku dhamaaday family dhan isqab ayaa meesha ku dhamaaday maxay ku dhamaadeen maysa og ayaga intarkooda la dili ma og inuu dilay kan dilaayo usan wuxuu ku dilay waxay tahay heer hebel waalidkaan ninkii khaladka galay ma aha ninkii khaladka galay maba aha ninkii khaladka galay uu joogo beledkiisa u gees ku jira cid aan waxba ugu jiro bis miyii heer hebel miyiin haa macsalaan wax dhibaatadaas dhan u keenay waxay tahay magaca qabiilka ay ka dhashteen bis ay dhibaatadan familkan arooska ahay oo gabdhahooda oo familkooda oo gurigooda aroos ka dhacay loo soo gal lagu baabi'iyay waxay tahay qabiil magac qabiil bis maana ma ahan qofkii qaladka galay ma ahan qofkii dhibaatada geystay ma ahan adiga macnaa qofka u bareeray ma ahan qofkii dhibaatadaas geystay aad arkaysid waa la yaqaanaa hebel la dhihi karaa laakiin lama aadayo waxaa ka soo dhow inta qabiilkii dadka mid ah macnaa war i waay ahayn ayaa loo imaa ayaa la baabi'iya hadda waxaad arkaysaa hooyo gabarteeda iyo gabar kale ay dhashay iyo wiil adiga ayay u tahay wixii oo dhan waa la isdursaar waa famil daqiiqada ka hor faraxsanaay daqiiqada ka horne ahlulqawur ah wax intaasoo dhan maxay ku dhacday heer hebel inay yihiin oo keliya ayay ku dhacday ma ahan wiilkaada qalad galay qof dila hataa ma ahan qabiilka aad ka dhalata ay qof laga dili bis Soomaaliya ilaa goormeen tan ku jirayna Soomaaliya ilaa goormeen ku jirayna waa sii socotaa waa 30 sano 40 sano wax yar noo dhimay waa 8 sano noo dhimay hadii ay tagto 40 sano ee noogu tagto san aanadna aan ku jirno soo doqonnimo ma soo dameer xumo ma Soomaaliya mash goormeen dhibkan aan ka bixina soo goormeen dhaafeena dhibaatadana haysato goormeen dhaafeena heer hebel wax loo dilay heer hebel oo qalad galay oo
sharciga islaamka wuxuu dilaa qofka dilo in la raadiyo qofkaas la dilo ma ahan qof adiga oo qalad aan kaa gelin inaad aad dishid sharciyaday ku baraysaa diintaas intay ka qoran tahay macnaha qabiil hebel qabiilka isku aqoonsan la imaanaa isku dil lama dhihin mafahad qabiilka qofkan heer hebel miya haa bis maahan heer hebel haddii qalad kaa galaan qof aan qalad kaa gelino lillahi umuuman iska socdo inaad u imaado bash aad siiso oo wax aad sabab aan weli kil aan ku dhin kac aan ku dhin aad u disho soo fole umma daqiiqada ka hor meeshii waxaa ka jiray buraanburo iyo heeso iyo xalfad ina bancaadeen iyo farxad ayaa ka jirta daqiiqada ka bacdin waxaa ka dhacday meesha murugo iyo tacsiyo ilan qoys dhan ayaa meesha lagu baabi'iyey iyo intii daris la ahayd hataa qoyska keliya ma aysan dhammaan waxaa ku dhintay ku dhintay dad daris ah waxaa ku dhacmeen dad micna arooskiis ka imaaday oo dad lagu casuumo kale oon qaraabadooda aan ahayn ayaa imaan intiiba dhaawaco iyo dhimasho ayaa kasoo gartay wallahi waxaan sheegay ma aqaan kolle waxaan leeyahay walaalahay qaaligahayo tan mar walba wax kama qabo karna aan ducaysano faataxdana aan aqrisano ilaahay inuu naga bixi tan ilaahay keliya ayaa naga bixi karo qalbigeena qabiilka galay qalbigeena oo qabiilka dhex degay ayaan ilaahay waxaan ka baryaynaa in qof walbo sidii qof hurday soo toosay qabiilkaas ilaahay usoo qalbigeena ugu bacsho qof walbo jiifto mise qof walbo soo jeeso inuu gacmaha kor u tago ilaahay inuu ugu baryo inuu ilaahay qabiilkan iyo qaabdaradan naga bacsho oo aan isku noqon dad walaala afar iyo faraanti ah isku noqdo dad ehel ah soomaali dhammaanteed waa dad ehela dad qaraabo ah qabiilkani waxaan baa aan qurmaayo walaala qaali waxaan idin leeyahay faataxda aan wada akhrisano inuu ilaahay naga bixiyo cidda dhibaatada ay gaarteen waxaan leeyahay intii ehel iyo qaraabo oo dadkaas ay ka dhinteen samar iyo imaan allah ka siiyo والله بينكم شيء انت كمان فيديو مسيب ذكر والله هذا الله انت لما الله أنا حريصته انت ايه هذا الله دكاس السمري مع نفسي هذا والله يا غالي جرنكات انت ما تديها هذا الله جرن الكيلو انا سكرب هذا لايك هذا شير هذا اسحب جلدك سرقت بحيث لي اضرب ما تحطونه